Assalaamu calaykum. Ajaa'ibta xayawaanka iyo noocyada kala duwan ee xayawaanka ayaynu ka hadli doonaa. Inta aanaynu barnaamijkeena gudagelin, fadlan ku soo biir Somali Voice Media adigoo subscribe saaraya kambalelkana furanaya si uu barnaamijku u gaadho dad badanna. Fadlan like saar. Haddaba aynu gadagalno barnaamijkeena xayawaanka ah. Xayawaanka ayaa loo qaybiyaa laba qaybood iyadoo loo eegayo goobaha ay ku nool yihiin, iyadoo kala ah labadani oo kala ah aquatic organisms amba aquatic animals oo ah kuwa badda ku nool, iyo terrestrial organisms, iyo kuwa saddexaad oo loo yaqaano aquatic organisms amaba aquatic animals oo ah kuwa ku nool badda iyo bariga, sida yaxaaska oo ku nool biyaha dhexdiisa mararka qaarna badda gala. Haddaba sidoo kalena waxaa loo qaybiyaa kuwa loo yaqaano terrestrial organismska laba qaybood oo kala ah wild animals oo ah duurjoogta, iyo domestic animals amaba household animals oo ah kuwa guriga amba dad la noolka ah. Haddaba barnaamijkeenu waxa uu ku saabsan yahay sidaad arkaysaan xayawaanada loo yaqaano wild animalska amaba xayawaanada duurjoogta ah. Haddaba xayawaanada duurjoogta ah ayaa ah kuwa aan ku noolayn dadka agtooda balse ku nool meel ka fog dadka. Xayawaanada ayaa iyagu iskood u raadsada waxay cuni lahaayeen iyadoo aan cidna ka caawinin sidii ay u heli lahaayeen cunto iyo quudkooda maalinlaha ah alla mooyaane. Sidoo kale xayawaanadani waxay iskood u raadsadaan meelihii ay seexan lahaayeen sida iyo biyaha iyo waxyaabaha kale ay u baahan yihiin, kuwaasoo ka helaya meesha dabiiciga ah ee ay ku nool yihiin. Haddaba meesha dabiiciga ah ee ay ku nool yihiin ayay ka heli karaan biyaha iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin sida hoygooda ayaa noqon karaa dhulka ballaadhan ee bannaanka ah oo ay ka qodan karaan godad. Sidoo kale waxaa noqon karaa hoygoodu looxaanta. Sidoo kale wuxuu noqon karaa meelaha baakiska ama beeraha, amaba xitaa deerkaaga ama guriga deerkiisa oo ay xayawaano aan agtaada soo istaagi karin ay yihiin kuwo ku nool deerkaaga. Haddaba xayawaan kasta oo adiga kaa cararaya markaad aragto ayaa loo yaqaanaa wild animals. Haddaba xayawaanada ayaa ah kuwa cajaa'ib badan oo in lagu cibro qaata ay tahay abuurista Ilaahay ee kala duwan ee xayawaanka. Barnaamijkeena xayawaanka ee aan ku eegaynay wild animalska ay qaybtiisii koowaad ayaa halkaa inoogu joogta, inagoo oo geli doona qaybta labaad ee wild animalska, inagoo qaybaha dambena ku qaadan doona domestic animalska amaba xayawaanada dadka la nool. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.